Waa cusub oo ka soo kordhay ismariwaaga dhismaha biyo-xireenka webiga Nile ayaa sheegaya in dowladda Itoobiya ay ku gacan saartay dalab uga yimid dhinaca Masar oo ah inay bilaabaan hawsha la xiriirta qodista biyo-xireenka, kaasoo ilaa iyo hadda la dhammaystiray boqolkiiba 70. Waxaa biyo-xireenkan laga sameynayaa webiga loo yaqaan Blue Nile oo u dhow xadka ay wadaagaan dalalka Itoobiya iyo Suudaan. Itoobiya ayaa dooneysa inay sanadkiiba biyo-xireenka ka dhisto 40 bilyan oo mitir laba jibaaran, sida uu sheegay wasiirka biyaha ee waddankaasi Kelche Bekele. Mar uu ka soo laabtay safar uu ku tagay caasimadda Masar ee Qaahira ayuu wasiirku intaa ku daray, arrintan sax ma ahan, annaga qudheena waxaan u baahannahay horumar mustaqbalka ah. Sidoo kale biyahan waxay soo marayaan Suudaan, taasina cadaadis ayayna saaraysaa. Waxaa kale oo sheegay in dalabka kale ee Masar ee ku aadan biyo-xireenka Aswan uu yahay mid aan la aqbali karin. Haddaba daawade subscribe saar channelkeena. Warbixinta haddaan sii wadno, dagaal ma dhex mari karaa Masar iyo Itoobiya maadaama la isku mari waayay wada xaajoodka? Suurtagal ma tahay in arrintu ay isku beddesho ficil militari? Dad badan oo ka mid ah kuwa wax indha-indheeya waxa ay sheegayaan in dagaalka adduunka ee xiga uu noqon doono mid ay sabab u yihiin biyo, waxaana jira dhowr meelood oo ka mid ah caalamka oo ay ka taagan yihiin xiisado la mid ah tan ka jirta gacanka Niil. Ismariwaaga dhismaha biyo-xireenka Niilka waxa uu horseedi karaa dagaal ku saabsan biyaha haddiiba ay Itoobiya heshiis la gaari weyso Masar iyo Suudaan. Inkastoo taliyaha arrintan u dhunduleela ay rajo ka qabaan horumar laga gaaro xaaladda ka taagan gobolka. Masar waxay hibo u tahay webiga Niil, sidaas waxaa oran jiray faraaciintii hore, laakiin waxay ilaah ahaan u caabudi jireen webiga Niilka kumanaan sano ka hor, iyo weliba xilliyadii ugu dambeeyay. Masar oo gacan ka helaysa gumeysaha Ingiriiska waxay khilaaf ku lug lahayd khilaaf siyaasadeed oo salka ku haya webiga Niil. Waxay Masaaridu damacsanayeen in webiga qulqulkiisa loo soo weeciyo dhankooda oo kaliya si ay iyaga uun uga faa'iidaystaan. Hase yeeshee Itoobiya ayaa mar waliba hortaagnayd rabitaankaasi maadaama ay tahay waddanka uu ku dhammaado webiga. Sanado badan ayay taagneyd sheekada la xiriirta in biyo-xireenka laga dhiso Blue Nile, balse markii ay Itoobiya bilowday inay dhisto biyo-xireenka waxaa qarxay kacdoonkii dalalka Carabta. Masarna waxa ay la tacaalaysay arrimo gudaha waddankeedii ah, laakiin ma jireen iska hor imaadyo militari oo horey u dhex maray Masar iyo Itoobiya. Laba jeer ayuu dagaal dhex maray labadani waddan, Itoobiya ayaana ku guuleysatay labadaba, sida ay sheegeen dad badan oo ku xeel dheer taariikhda. Masar waxay noqotay waddan awood militari oo aad u weyn ku leh qaaradda Afrika xilligii ay soo ifbaxday boqortooyadii Cusmaaniyiinta. sidaasi awgeedna inay Itoobiya dagaal la galaan waxay ahayd lama huraan, maadaama ay Itoobiya ahayd boqortooyo awood weyn ku leh qaaradda. Bishii Diseembar sanadkii 1874 ciidamo ay leedahay Masar oo tiradoodu ay dhan tahay 1200 oo askari ayaa ka baxay dekedda Kassala, waxaana hogaaminayay sarkaal u dhashay Switzerland oo lagu magacaabi jiray Mosenga. Durba waxay qabsadeen Kilen bishii Oktoobar ee sanadkii 1875. ciidamo kale oo ka socday Masar oo uu hogaaminayay Korneel u dhashay Denmark oo lagu magacaabi jiray Son Ernedol ayaa qabsaday gobolka Jenda, waxayna ergey u direen boqorkii Itoobiya xilligaasi haystay ee John, iyagoo ka dalbaday in la calaamadeeyo xuduudda. Laakiin ergada intii aysan boqorka gaarinba waxaa ka hormaray war sheegaya in Masaaridu ay ciidamadoodii ku xoojiyeen 2,000 oo askari ayna ku jiraan ciidda Itoobiya. 14 bishii Novembar 1875 ciidamadii uu watay Korneel Ernedol waxaa lagu weeraray gobolka Gondar. ciidamada halkaasi joogay Masar oo ay tiradoodu ahayd 2,500 waxay la fajaceen sida ay ciidanka Itoobiya u isticmaalayeen hubka gacanta lagu qaato. Markii la gaaray 16 Novembar dagaalkii wuu dhammaaday, wax yar ayaana ka badbaaday ciidamadii Masaarida. Dagaalkii Gore ee 1876 kadib markii Masar looga adkaaday dagaalkii hore, ciidamada Masar oo tiradoodii la gaarsiiyay 20,000 oo askari ayaa weerar ku qaaday Itoobiya sanadkii 1876, waxaana markaasi hogaaminayay Maxamed Rashid Bash iyo jarnaal u dhashay Mareykanka oo la oran jiray William Loring. Markii ugu horeysaba ciidanka Masaarida waxay gudaha u galeen magaalada Gore ee dalka Itoobiya, halkaasi ayayna fariisin ay ka sameyseen. 5 iyo 6 bishii Novembar ciidamada Itoobiyaana oo ay tiradoodu dhan tahay
200,000 aadna u hubeysan ayaa bilaabay weerar ka dhan ah ciidanka Masaarida 8 iyo 9 bishii Maarso ee sanadkii xigay. Ciidamada Itoobiya waxa ay weerar ku qaadeen magaalada Gora 10kii bishaasna abaanduulihii ciidamada Masaarida ayaa qaaday dagaal rogaal celis si weyn ayaana Masaarida loogu jabiyay halkaasi. 12kii Maarso qunsulka Faransiiska ee magaalada Massawa oo lagu magacaabi jiray Monsieur Servet ayaa tagay goobta dagaalka ciidamadii dhaawac ahaa ee Masaarida waxaana loo daadguriyay magaalada Massawa. Ciidamada Itoobiya waxay markaasi ku hareen goobta dagaalka waxayna la wareegeen qalab ciidan oo aad u fara badan oo ay wateen ciidamada waddankaasi Masar.